waxaa maanta annagoo u micnaynay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenku ay la soo galeen ciidan si lama filaan ah intay soo jireen weliba baarlamaanka u soo geliyeen ciidankaas oo aan ahayn ciidan bodyguard ah xaqiiq ciidanka 3 dabaq fooli kara ay intay iskala qaybiyaan ciidan aan yarayn oo labisan dharka xoogga dalka Soomaaliya oo abaanduliya amarka qaadan waay iyo ciidan kale dhar cad ah waanu garan weynaa ciidan ka socdaanba taas waxay ahayd provocation xun waxaan rabaa inay shacabku fahmaan ummadda Soomaaliyeed ay fahanto ciidamada qalabka sida ama ciidamada amniga sugaya 20 iyo 30 iyo 40 iyo 100 uma babacdigi waay inta aan sheegay waa hakin karaan waana qaban karaan 20 wiil loo wato iyo 30 qof iyo Cabdi Bilal la socda ciidanku intaasu saraakiil idin muuqata arkisan taliyaasha fadhiya awood looma waayeen in la xabadeeyo laakiin yey dan ugu jirta qorshaha Soomaaliya inuu dhinto taas waxay tahay moral obligation in la isla qaato moral inuu qofku qaato warma is it worthy war suuragal ma tahay in adiga darta loo dhinto in darta dad xabada isku dhigan Soomaaliya nidaam yar oo aad mari karto oo sahal ah oo waliba madaxaad ka tahay inaad tiraahdo xoog baan ku jiirayaa waa handadaaya waxaan malaynayaa haddii madaxdu garan weyso ilaahay anaga bana garansiiyay ciidanka waxaan ku amray inaan hal xabad la ridin hal xabo sumcad xumada Soomaalidu u keenayso baarlamaankoodii waa xabad ka dhacday qof kasto damiir leh oo shakhsiyad leh oo muwaadinimo ku jirto waa dareemi kara ceebta ilaaday baarlamaankii baa la isku xabaday ciidanka amniga awoodda ma waayeen waxaan lahayn ha gartaan oo hadaayaan waa wax u baahan in la hubiyo u baahan ciidanka meesha galay dareyska militariga iyo kuwa booliiska iyo kuwa ciidamada dhan waa dad badan baa haysto shacab ayaa haysta oo waliba qoriyo inay haystaan la og yahay laakiin markii la baaro ayaa waxa la ogaanayaa yani hay'adda ay ka tirsan yihiin sida rasmiga ah hadday militariga yihiin waxaan rabaa inaan idin xaqiijino gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirada iyo dawladda xukuumadda qaybaheeda kala gudsan iyo dadka mas'uuliyiinta oo dhan waxa waardiyeeya muxuu ahaa ciidan militari ah waardiyay hubkii militariga haystaan marka ninka muxuu ahaa haysta ciidan militari haysta hadduu la galo meesha inkastoo la baarahayo hadda sababta u galay marka waxa la ogaa inaan booliis iyo militari iyo qof qori wata inuusan gelin ayaa la ogaa sababta uu la galayna inaysan sharciga waafaqsanayn waa la sheegay laakiin ciddii fududaysay ilaa waxaa jiray ciidamo ka kooban ciidamada noocyada kala gedisan ka kooban baa joogay ciddii marka ogolaatay in cid hub haystaa ay gasho